بسم الله الرحمن الرحيم waxaan soo fariistay inaan u jawaabo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ninka bidaarta leh ee bidaarta xilada tii ka guureen baan halkan uga jawaabaya maadaama uu yiri Soomaaliland dadkeeda shacabkeeda waa la caburinayaa annaga aan ku sheegno ninkaaga bidaarta leh oo timuna ka guureeno war horta waxa la yiri ama nin timu way ka ama waxay kaga guuraan aqli ama nacasnimay kaga guuraan nacasnimadii kaga guureen waxaan leenahay nin weyn oo way aragna mid waayo timu waa kaama carreente waxaan leeyahay mid kale aan soo noqdo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland markii aan ka keenay xamar magaalada Muqdisho annaga xornimo ku keenay hadda Soomaad garan markii aanu qaadanaynaa oo calankayga taageeraynaa annaga xornimo ku taaganay midna la qabsay maaha hadda Soomaad garan calanka Soomaaliland waa doctor waxa loo soo maray baby aan ku warramay hadda Soomaad garan Hargeysa joogtay markii calanka la xoreeyay calankana la saarayay Hargeysa baad joogtay ilaa 18 May 26 June markii la xusayay Hargeysa joogtay waxna ka barareysay hadda Soomaad garan lacagta Hargeysa isticmaalaysay sidii xabadii maanta in lagu soo rito maaha taas waa sharaf darro oo lagu soo aadiyo dadkaaga oo lagu yiraahdo dadkaaga wal caburinaya hadda Soomaad garan annagu Soomaaliya waan ka go'nay waanu ka go'nay horan waa ka go'nay haddana wuu sheegnaa hadda Soomaad garan Somaliland weligeed way taagnaanaysaa laga marayaabo inaan ku darsano waqooyi koonfuraan ku darsano koonfur iyo waqooyi in la isku daro taas ma dhacayso waxaan leenahay wada hadalkana oo aan leenahay halkan farmaajo kale leenahay wada hadalka waxaan leenahay in uu annaga noo soo diro weeyaan dad metelaya federaalka Soomaaliya sida isagoo kale laakiin ma aha annaga noo soo diro caruurta Somaliland taas waa mid laga xishoodaa oo ayaan dhaweydna noo soo xulay wax ma laga xumaadaa bay ahayd waxaan leenahay mid ra'iisul wasaarahana nin weyn oo waayo araga iska dhig sida xabadda lagu soo adeegsado maaha Somaliland waa qaran ee maaha maamul bita la soo Somaliland way jiri doontaa inta jiraysidba hadda Soomaad garan Somaliland waa taad ku soo barbaartay waa taad wax ku soo baratay waa taad ku soo dhaqantay maanta in lagu yiraahdo dadka Somaliland waa xor calanka markii saarayeen xor bay ahaayeen calanka markii qaadayeen xor bay ahaayeen dad inta la qasbay lahaa Muqdisho keen lama ahayn dad la qasbay lahaa calanka taagana Hargeysa taagana ma ahayn hadda Soomaad garan dalka Somaliland waa dal madax bannaan adduunyaha dhan aqoonsan doono haddii Ilaahay yiraahdo dalal badan hadda aqoonsiin waxaan leenahay in way baatay waxa martaba ku dhaq